السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى أيام هذا بفضل ومن وإحساني الله سأقول الشيء قال أول أغرب بن آدم قدري سأقول قرن محا سحن محا قلدن محا أسود جوكت محاكم مغنيكم أدقت هاي برقي الله هل ساشالي الله هليسي دتك محي الدنيا محي دينيهين ما حد جعشها إنا مغشد مو حد جعشها هي واقع إنا كدومتد مش واحد جعشها كنت إنا كن ولاتد سؤالات ربضا وتلكي هبردي سو ويديين حل كدك لحدا يا دور سنة سوماليا كسعودي أو أها علنكنا بلوغلو علنكنا بلوغلو واقرتي محاكو حقا إثيوبيا وعدوغينا لابو كلمة سدحت محيط هاي هدي إلهي كروية عيدان كينا شرفتلي كان هو جوردن askari qaran qiimo iyo qaayo ku lahaa Soomaaliya magaciisa si fudud loogu bedelay Caraba kan waa Cali Meegaag sargaal booliska oo guriga lagala baxay gacmihii luguhii fadhiisteen soo lugu aan 15 sano shaqeynayay taasina waa gabar Soomaaliyeed Itoobiya ma wax barakicinaya taasina waa hooyo Soomaaliyeed Itoobiya ma wax barakicinaya ciidanka Soomaaliyeed waxay ka duulaan Muqdisho waxay u duulaan Kismaayo waxay u duulaan Hargeysa waxay u duulaan ayagoo si kor maraya boqolaal mayl oo khawaarij ay joogto aqasunaas fil caalam ay joogaan kuwii nabi maxamed oo ka ballamay ay joogaan alladheena dalla sa'yuhum fil hayati dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كو كسفي علي أبي طالب كواس أو نبي أو كشيء هدان سوجارو وان لين لها سيدان لولا يعادي ثموت كو أي مجال كو اللي يرنيك أي دلان ينكو بدل بجنة يجليان أي الله سيكور مريا كدبنا وحالة جيا مال صومالي وأي جوكتو ووحي lagu jiraday ee ahaa federaal waxaan ka samaysanay in magaalo madax ka nool ah oo hal nin ka taliyo inta ciidan ka soo qaado Soomaali kale oo xoreeyo waa taariikh aan anigu u soo joogay waa taariikh annagoo qabiila aan soo tajarubaynay waa taariikh natiijadeeda la hubo inay baaba ku dhamaanayso Kismaayo waa la xoreeyay aan maqlaynaa maanta Doobley waa la xoreeyay Saskamboni waa la xoreeyay waxa la xoreeyay ku dhac waxa la xoreeyay meel hebel xorma ahayn miya awal Soomaaliya kuma nooleyn miya waxa dastuurka iyo federaalka laga sameeyay ma ahayn miya waxa suuba iska arar balse aan u soo noqdo waxyaabo aad jeceshahay naftaadu waxay jeclaan lahayd calankayga buluglow calank fiil calankan waa maro qiimo ma yeelanayo hadduu dad lahayn gabar baa hadasho waxay tiri xasanow 8 saaxiib niman jooga gurigaaga waa kaaga baxaya Soomaaliya dawladnimadeeda waxa baabi'iyay in ay shacabku aaminaan dalka inuu nin leeyahay waana sababtii kaliftay in dawladii dhacday waxba aan loo reebin waxna aan loogu istaagin wax kastana loo qaato in dawladdu ay lahayd saasna loo burburiyo wax kasta oo dawladdaas ay lahayd oo ahaa oo dadku ay wada lahaayeen kuwaas oo markii dambe noqotay in la aqoon waayo dadku in dawladdu ka maqan tahay in kale waxaan rabaa markii inaan ku dhaho walaalkeeyo waxaan rabaa gabadhan ila dhageyso marka hore maxay leedahay gabadhan waxay leedahay hadii ilaahay ku runay waxay leedahay gabadhan 8 saaxiib niman joogay ilmahayga intaan kala baxayo madaxweyne waa kaaga baxa gurigaaga waa kaaga tagaya madaxweyne gurigaaga waa kaaga tagaya kaadi ilaa waaga iga buriyo madaxweynaha iskale madaxweynuhu wuxuu ahaa mid shacaba oo dadka aan gadan dalka iyo dadkana waa la wada lahaa waxaan rabaa markii inaan ku dhaho marka hore waxaan u maleeyaa in programkan la yiri ka saar qoladii samaysay oo hadii ilaahay ku ruuyo lama arkayo
gabadhii hadlaysay lama arkaayo kolley qolaa ka saartay oo dowladdaa tiri ka saara midhaasay ila tahay cali aadan muuminaa soo dhigay waxaan rabaa marka inaan dhaho waxay leedahay madaxweyne gurigaaga waa kaaga baxayaa waxaan rabaa dalka ma dadkaa iskale diin ahaan marka la yidhaahdo qofka bini aadankaahu meesha uu ku nool yahay oo intaas sano ou deganaa oo ou noolaystay yaa iskale dekadda garaacad yaa iskale ciidanka ninka soomaaliya madaxweyne ka noqdaa deegaanadiisu ciidanka dowladdu kuma duulaane way difaacaan ma maqasheen ciidan dowladeed oo cadale ku duulaya oo ciidan jooga weeraraya ma maqasheen ciidan soomaaliyeed oo xasan sheekh maxamuud ow diray oo ku duulaya abgaalka isdilaya abgaalkii xawaarlaha isdilaya ma aragteen kuwa isdilaya khawaarijta dadka u jilcinaya geedaha cidladaa isku haysta ciidanka aan kala dhicinayn ee axmed madoobe nooga dhigaya inuu yahay haddii ilaahay ku roon yahay nin cirka ka soo dhacayo balaayo madoowa oo dhul laga xoraynayo taariikh aan soo tijaabinay natiijadeeda la yaqaano muddo kororsi loogu socdo waqtiga lagu dhuminayo dadka in la dhaco lagu indhasarcaadinayo fiiri dictatorku hal dabeecad uu leeyahay putin ninka la leeyahay ruushka dalalka adduunka ugu horumarsan uu ka mid yahay ruushku moscow caasimadaha adduunka ugu sarreeya haddii la yidhahdo tareenada haddii wax kale la yidhaahdo ugu quruxda badan ay ka mid tahay qof aadaya ma aragteen maxaa loo aadi waaye maxaa loogu haka waaye maxaa shaqo loogu doono waaye ninka ka talinaya dictatora waxaan rabaa marka inaan ku dhaho putin ruushka ma hayn karo ilaa inuu dagaal geliyo maahane haddaad aragtid digdigle dagaal un ku jira dagaal un u socda haddaad aragtid ma aha nin meel u socda ujeedadiisuna waxay tahay si aanba su-aal loo su-aalin dalku dagaal buu ku jiraa dalku dagaal buu ku jiraa xaalad dagaal buu ku jiraa dadku dagaal buu ku jiraa waana la soo weeraray fiiri etoobiya baydhabay joogtaa badaxaa way joogtay dhulkaanoo dhamay joogtay xasan sheekh maxamuudaa u digrinayey asagaa ammaanayey saakay ma imaan sida etoobiya ay ku bixi laheedna waxaa sababay hogaamiye akhlaaq xun aragti xun haddii ilaahay ku roon yahay hogaamin xun qalbi xun ayaa sabab u noqday in soomaaliya etoobiya soo gasho maxay uga bixi kartaa hogaamiye qalbi fiican cadaalad ah runsheeg badan adduunyo aan doonaynin inuu wax bedelo raba ma muuqdo dowladdii kacaanku qaabkii u dhaqmaysay ayuu mid ka fool xun xasan sheekh maxamuud u dhaqmayaa calankeenna buluglow ciidankeenna sharafta leh iyo etoobiya waa cadowgeenna weligay waa maqlaayey dhul nooma ziyaado karaama nooma ziyaado dadka soomaaliyeed boqolkii inta ugu badan baasaboor etoobiyaan ay qaateen etoobiya dad masaakiina nagama barakicinayso etoobiya haddii ilaahay ku roon yahay dadkeeda iyo deegaankeeda waa federaal say u nool yihiin ba ha noolaadeen waxbay isku haystaan ma noo daran yihiin mise waa noo roon yihiin annakaaba isu daran hadalka marka aan ka hadlayo nuxurkiisu waxuu yahay inaan u soo noqdo su-aalo yar oo aan rabo dadka habargeeda inaan uga jawaabo dad habargeedana ay soo su-aalay waxay igu yidhaahdeen jamaalow waxaan kaa rabnaa maxaa dhacay man ammaantid ammaan waa idin ammaanay walaalayaal waana ammaanan tihiin qabiil ahaan sharafaad leedihiin waxaad tihiin qabiilka keliya ee socon kara dowlad la-aan haddaad maqashid power horse waxa la yidhaha jira power horse baabuurta ama military ha ahaadeen ama taangi ha ahaado ama diyuurad ha ahaado ama four wheel drive ha ahaado shirkaduhu waxay ku kala sarreeyaan meesha dhiiriga ah meesha biyuhu ku jiraan meesha dalcadda ah meesha bacaadka ah ayaa lagu kala haraa ee quruxda iyo dhalaalka guud laguma kala haro waxaan rabaa habargedir waa qabiilka keliya ee power horsiga haddii soomaaliya aysan dowladu ka jirin bacaadna ku soco karta biyana ku soco karta dhiiqana ku soco karta waa marka soomaaliya ay dowladu ka jirin qabiilaadka soomaaliyeed waxay dheer tahay habargedirtu inay awoodaan dowlad la-aan in ay u noolaan karaan sidii dowladdii
هذا قلمدو ومامل أن دولدو كجرين ومامل أن من ديد هيسن ومامل أن هجان لهين ومامل شعبكو أي سمايستين تارجدا شعبكو أي دكت فرتين معملة شعبكو أي اسمه مولان شعبكو أي عشورة الديبان شعبكو أي رباركو دوسا مريم لسنايان شعبكو أي لسنايان جدك الجب شعبكو أي اسكولات فرنايان شعبكو أي بغلال اسكول فرنايان مع الجاليد هذا ومامل أن لهين عد أدوديسي عد مغن ومامل حلقيسي دماده ومامل دادك اسكالي ايسوالي قد كفكرين اني هقان ادورتان ومامل قورقور حمر لوغا كيري ومامل هقانك يدادك ديغانك اسكالي ايسان اغو حسابت من سيدا مامولودا لوغو حسابتمو وانا سببتا مامل كاسو ساكي مركا لغا ريابو سوماليان اي بنتلان مامل كسدحاد ugu shagaxda badan oo ugu dhaqdhaqaaqa badan oo ugu dhulka weyn oo ugu amniga badan oo ugu ciidanka fiican uu yahay waa maamul 3,000 wiil oo deegaankaas xoreystay laga qaaday lambaradii ee xasan sheekh maxamuud qaraabadiisa oo siistay waxaan rabaa marka haddii ammaan aad u baahan tahay maamul survivor very talented ah hadda example waalaha xasan sheekh maxamuud oo ka dhashay iyo waalaha farmaajo oo ka dhashay waa faanaan annaka marixaana 30 sano dalka soo xukunay deegaanadooda waxay dhisalaayihiin dii ilaahay ku leeyahay waxay dhisalaayihiin webi buundo dhaxmartay dhisalaayihiin waxay awoodi laayihiin in markay dawladnimada waayaan ay muuqdaan oo miisaan yeeshaan markaa dawlad tahay waxa dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayaad meel dalcada ka hoobanaysaa qabiilka uu dadka quality ma dheera waxay lahaayeen oo dhan ayuu haystaa walaalkii bishaar abshir geedi waxa laga qaadaa traafikada waxa loo dhiibay xasan sheekh maxamuud xaaskiisa wiilay habareen u tahay daauda gaadiidka cirka iyo dhulkana wiilay eedo u tahay islaanta xasan sheekh maxamuud loo dhiibay labada jagaba habargeeda laga qaaday midna saruura haysan jiray midna cayr haysan jiray سفاردهي أردن وحا قاتي حسن شيخ محمود عديس ليسن ترسمسترالي قارير عرئي يقول دكت يا عشور قولي عشور لغا قادو انتي اسكو درسدين وسوف ديسايا مركو أماني شيغان ايان وحاس اي شيغان ايان ماهن وح عضالي كسو بحي ماهن اكسامبل قرعيلو كالي ومقالو فاني كرتا وسيلو كله ومقالة فاني كرتا هوبيو كله ومقالة فاني كرتا عدادو ومقالة فاني كرتا كوفورت المقدسة هبر جيرت الدقن وهذا فاني كرا maxaa yeelay kuma tiirsana transmasterale arrimad dibad cashuur ay meel ka soo qaadeen laakiin maxay waayeen hogaani waayeen sidaa awgeed waxaan rabaa inaan ku dhaho adiga habargeedta haddii aad dhibsato hadaladayda waxaad jeclaan lahayd inaan dhaho wallahi sida loo cartamo wallahi cadow loo gilgilo inagu waa ku caanbaxne dadow ma leys ceshado waa luqadda baadiyaha luqadda magaalada maaha luqadda matalaada maahan luqadda matalaadu maxay tahay luqadda matalaadu waxay tahay waxa aad matalaysid iyo dadkaagu inay la sinaadaan dadyowga ku nuuca waxaa la rabaa gabadha habargeed inay la sinaato gabadha isaaq gabadha majeerteen gabadha abgaal gabadha ogaadeen inay la sinaato shacabka habargeedna waxaa la rabay inuu shacabkaas ku nuuc yahay cidda matalaysa ayaa xun haddaanan iska bedelinna nabarka nagu yaalla iyo calaacalka iyo waxa aan ka hadlaayo oo aan sheegayo ha u qaadanin inaan habargeed ku caayayo laakiin waxaan ka wadaa inaan ku tusiyo haddii aad taqaanid qofka habargeed dad badan waayo haddii aad taqaanid walaalow wax lagu faano oo maanta taagan fiiri aabbahay baa geel lahaa jiray hooyaday baa lo lahaa jirtay awowgay baa talyaaniga noo yiri aniga dhulsa mareebay gurceelaan difaacday wasiilaan shabaab ka saartay jidka gobaan dhistay waxaan lahaa jiray Soomaaliya calankeedaan keenay waxaan lahaa ninkii Soomaaliya la shiray waxaan ahaa nin waxaasoo dhan taariikh la soo maray waay raggii waxaas qabtayna waa dhinteen raggaas ahaa way dhinteen waxaan rabaa marka mid inaan ku iraahdo
هل سؤال أو سمبل فاهم كرتان كوشيga هدي اللي يراهدو هبر قدر أيان قبر كسود أيان قبر كربنا محيتها قبر ناسو واجو فدي وسؤال غلطان لكن قبيل سوماليات قبر هبلاية ليرا فاطمة حسين علي أو سرور أو سعدة أما سليبانة أما عايرة أيان صدوني أنكو ريهبلا وإنه هبلايه هبل وأسو قول قلني عدا ماشا فردسوها برقدرتها ويكقدو ميسا هدي يكد حيسي قبل إن عدا كلا قرسدان وينسينا يعني وقبر عيمن إلهي باكو داشي قبر داسي يا صدونتي جفو يا صدونتي ويل يا الله ربا ويل محو دونايا إنو قبر داس قول لقالو وهل قبر يا لغا صدوني جفا عيمن مقع الجود بهبر قدر هلا دهو ماشي هبر قدر هو دماتو سرور كليه هفديو سليمان كليه هفديو سعد كليه هفديو وقبر وفهم ودغن عادي وفهم كرتا لكن جفا سوماليين انت سو بخدو جروب هبر قدر انت حفلad u dhigto ma dhihi karaan gabar habar qidar in ka rabna ma dhihi karaan wal isfarsana waa gabadhe سليمان gabadh ma عاير miya ma سرور miya سعد miya ma maxana warsateen maxay tahay gabadha warsanaysiin yaa dhalay magaceed may gabar habar geeyaan ka rabnaa gooshaas waa qaldan tahay normal ahaan waa fahmi kartaan midalka maxay idin siinaya midal aan fahmi kartaan ku soo wada marka waxaas dhan loo marayo waa hal gabar oo hal wiil loo rabo waxaan rabaa marka habar geedir oo dhan gabar iyo wiil sharaf iyo karaamo wax qaybsi diintooda loo ilaaliyo magacooda loo ilaaliyo sumcadooda loo ilaaliyo xisaabtankooda loo ilaaliyo deegaankooda loo ilaaliyo ilmahooda 8 saac beenimo guriga in lagu damiyo laga ilaaliyo deegaanadooda horumarin laga sameeyo dawladda waxay ku lahaayeen safaaradaha waxay ku lahaayeen waxaasoo dhan in laga hadlo oo lagu xisaabtamo ciidda noo matalaysa masaxba in oday xasan sheekh maxamuud la yiraahdo oo dagaalkii afar biloodka ku jiray oo naga xusho wili asoo warsan wili ma dhihin xasan sheekh maxamuud aniga xisbiga aan samaystay waxaan u xulanayaa gabar mahaya ragga idin matalaya oo karaamada gabdhihiina matalaya oo deegaankiina matalaya waana sababta ay galmudug maanta hoggaan la'aan u tahay waa sababta safaaradaha aan waxba ugu lahayn waa sababta 20 xil oo habar gedir laga qaaday 20 abgaal loogu dhiibay waa sababta aad u taahaysid meesha aad ka tahaysan aad u garan laadahay waa sababta dadkanaga habeenkii loogu guurayo oo guryaha loogu damiyo waa sababta meel kasta oo dhadhan yeelata oo deegaan habar gedir degan tahay xasan sheekh maxamuud iyo cidiisu ay ugu mamman yihiin waa sababta dhulka ku yaala deexda ee dhanka abgaal ku yaala cid rabta aan loo arag waxa qiimaha leh oo in la ilaaliyo u baahan waa dadka habar geerta liiraa oo maxay karaama ku leeyihiin haddii habar geertu meel jasiirada degaan qaali noqonaysa haddii abgaal uu meel dego qaali ma noqonayso maxaa kalifaya soomaalida ayaan waxaan la leenahay dhaqan wanaagsan waxaan ilaalinaa dadka nala degan waxaan ka shaqeynaa in dadka aanan dulmin iskuma raaci karta 5 qof oo habar gedira qof dhex jegan in la dulmiyo sida awgeed waa qabiil karaama iyo macna leh oo in aad loo ilaaliyo u baahnaa dadkii marka qabiilkaas ilaali lahaa ma haysano waxaan rabaa marka waxaan u soo joognay 8 sano la soo dhaafay group cagabaror oo habar gedira oo aaminsan qof habar gediro madaxweyne ma noqon karo arrinka ayada sidii loo waday waxaan gaarnay maantay wiil Mareykanka ka yimid oo cagabarura in xasan sheekh maxamuud oo yira ninkan baan habar gedir ka xushay asaga ii soo xuli doona mustaqbalka xildhibaanada habar gedir waa kasi markii hore sidii hore kasi xeel dheertay weli ma aadan ka fikirin man aadan garan bal waxaad ku mashquulsan tahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sheekh Shariif iyo Khayre oo yiri dastuurkana way baal marsan tahay guddigaanuna waa guddi shaatin nin toshay oo harqaan inta taga oo soo toshay walaalayaal
nin challenge naga dhaxeeyo qabiil challenge naga dhaxeeyo qabiilka kaliya oo challenge naga dhaxeeyo abgaal waay maxaa yeelay haddii ay madaxweyne noqdaan waxba ma lihin anagu raaciyada noqonayna hadday ra'iisul wasaare noqdaanna waa sidii khayro waa sidii maalkii la dhihi jiray ninkii la dhihi jiray caligeediyo wax raaciyada noqonayna wax ugu qamaliin abgaal madaxweyne wuxuu ku noqonaya abgaalnimo maahan abgaalnimo waxba gaara ma goyso aniga karaamadayda awoodayda taalantigayga difaacayga oo la isku daray ayuu abgaal madaxweyne ku noqonaa markuu madaxweyne noqdo waxaan xaq u lahaa maatidayda in la ilaaliyo guryahayga la ilaaliyo power sharingka aan haystana haddaan wax la igu darayn aan la iga qaadin sambaloolshe nin abgaalaha ku xiga waa maqaar saar taliyaha booliska naag waa islaha lagu daray waa maqaar saar taliyaha militariga waa abgaal ciidanka waa abgaal maaliyadda waa abgaal arrimaha dibadda waa la haystaa gabar ogaadeenaha waxay ku leedahay kursigaagii waas la qaatay waa lagaa dhacay dowladda kaa dhacday xaqaaga goobo wuxuu ka shaqeeyaa wasiirka arrimaha dibadda oo walaalkay ah oo fiqiya inuu habargidir eed u soo qaado kaliya wax kale kama difaaco waxaan rabaa marka simple answer adiga habargidir hal booniyaa lagu dhiibay qabiil daarood la yiraahdo iska dhicno hawiye daarooda isahaya walaalayaal hawiye daarood hadduu isqabto waxa isdilaya waa habargidir iyo daarood abgaal iyo daarood isma dilaan isma arkaan isma arki doonaan lama dagaalaan cadow uma yaqaanaan maxaa yeelay gabdhihii ugu badnaay oo xasan sheekh maxamuud qaraabadiisa ah nimanka uu ku daraba oo wada daarood sidaa awgeed walaalayaal annaka habargidira saakama waxaan u daarsannahay dagaal daarood may darisaan ka rabnaa isbahaysiyaan ka rabnaa inaan la noolaanaan rabnaa dukaamada ugu waaweyn ee boosaaso ku yaalla walaalaha habargidira iskala salamaan u badan kismaayana waa ku noolnahay nairobina waa ku noolnahay etoobiyana ganacsi ugu badanaan ku leelahay somalilandna waa degannahay isaaq colaad kama rabno haddaan habargidirnahay cid noo dhahdaan rabnaa haddii la waayey anigaa dhahaya ha igu colaadinin adiga naftaada sidaan ugu doodayo gurigaaga inaan lagaa barakicin ayaa ninka habargidiroo jooga kismaayo waxaan leeyahay soo ogow oo istiriyo ganacsatada habargidiroo kismaayo joogto ilaa kenya waxgeysa 80% habargidir waa boosaaso dadka ganacsiga ku leh 80% dad badanaa ku jiro habargidira 80% maaha laakiin percentage badan oo ganacsi powerful ah ku jira sida awgeed walaalow aniga habargidira dad imatala oo Soomaali ila heshiisiya oo Soomaali dhaqan fiican kula dhaqma miyaan u baahanahay in la barto uma baahan aniga habargidira wal nooraan ah Soomaaliyan baloon la dheelay koobkii ka qaaday hawiyan baloon la dheelay koobkii ka qaaday adduunkan baloon la dheelay koobaan qaaday geeska afrikan baloon la dheelay koobaan qaaday qabiil ka soo gurmaday hobyo oo ilaa ku dhaa isu gurmaday 200 kilomitir tataar ma ogi qolo Soomaaliyeed samaysa male sida awgeed magac iyo taariikh history waa leeyahay laakiin maanta hoggaan malihi aga barura Italy mana ogolaan karo wiil usbuura oo Xasan Sheekh Maxamuud Mareykan ka keensaday oo guddi doorasho qof iyo coda aniga ugaas iyo suldaan ee noqda oon waxba ogeyn oon history hayn oon taariikhayn oo aniga leega xushay walaal jufadaada ayaa gabar laga xulan karaa laakiin matalaadaada lagu xuli karo siyaasadda iyo dhaqanka saas u kala bedelanta waana habargidir waa dad dhaqana hadda ka hor ayaa niman new police iyo niman aniga qaraabadeeda waliba jufayda u badan habargidir waaye laakiin habargidir waa degtaa laakiin meeshaas habargidir aan ku deganahay laakiin raayaan la u badan new police ka ayaga way isku baabeen boqolaal new police dhimatay dumar badan naga dhintay ciyaal badan la laayay markaasaan waxaan ku iri walaalayaal waxaan u baahanahay inaa ii soo dirtaan dadkii la laayay oo dumarka iyo ciyaalka ahaa iyo dadka hadlaaya waxay ii soo direen new police la laayo darbiga kala laada oo meel daadsan war waxaan ku iri new police ma rabo waxay ku dhaheen dadkii lidinka dila keena oo adinkoo cabanaya dumaraan aqaanaa la dilay ilmaa la dilay dad waayeelaha la dilay kuwaasaan u baahanahay victim ayaa tihiin dowladda idin laysay dad shacabaha tihiin warkiina inaan gudbiyaan rabaa waxay ugu yiraahdeen may anaka dadka naga dila ma keenayno dumarka nagana kama hadlayno waxaas caay waaye new police aan dilna soo dhig
waxaan ku yidhi adinka maan eed idin saara war magaalo kan maahan war magaalo waa in shacabkii lagaa dila aa keentid dabeecadda noocaasa waa dabeecad oldhiya waa dabeecadda baadiyaha waa dabeecadda ararta gabayga lagu furto waan duullaa waa dagaalanaa dibidhaceennii afar kale dig baan soo niraa waan dabaaldegidhe haddaan doodo doobigayga waa loo doraa libaaxa sidaysaan u doobiyaa sidhe ratigeel ayaan doobiyaa anidhe dhirtaan soo jejebiyaa waxaas baadiyaha lala joogaa magaalada eed waaye laakiin magaalada waxaa lagu joogaa xisaabtan fiiri nimanka habar awal la yidhaha 30 iyo dhowr sano ayaka somalilan xukumayay xilkii markay waayeen horey waxay ka bilaabeen inay cabdikariin haddii ilaahay ku roon yahay ninka la leeyahay cabdikariin ninka la leeyahay mooge inay hore ka mucaaradaan cashuurtaan dhiibnaa cashuurteena meesha geysakeen weli ma aragteen habar gadir leh yaana la barakicinin madaxweynuhu lamahane cashuurta aan dhiibo maxaa liigu bedela ma aragteen cashuurta habar gadirta laga qaado ee muqdisho joogta hadday gobolada dhexe joogi lahayn oo laga qaadi lahaa soomaaliya oo dhan gobolada dhexe tegi lahayd waana arki doontaan marka dekada hobyo la dhiso magaaladaas hobyo siday noqotaa arki doontaan waxaan rabaa marka mid inaan kugu soo gabagabeeyo walaalow dabeecadda baadiyaha oo faanka adigoo lagu dilay inaad faantid ah adigoo dad badan lagaa dilay inaad digatid ah adigoo dad badan lagaa dilay inaad dhahayd ebadkeed baraacadda marro wax jebinaa dhaqanka magaalada waa kala bedelan yahay nimankaas habar awalku waa yaqaanaan abgaalkuna waa yaqaanaan waa dowlad ku nool maryaxaanku dantooda yaqaanaan hadday dowladda ka tagaan wax wadanida ma jiraan saakay beled xaawo iyo dhulkii haddii ilaahay ku roon yahay gedo dhan 7 guddoomiye godayay jiraan intaasoo maalmood aaw wadanigii maryaxaan waa wadani waa sax laakiin waa markii uu xilka haysto abgaal maanta wadani uu jilayaa in the history amxaaro iyo talyaani iyo amerikaan iyo cid walba way taageereen maanta wadani ay jilayaan wadaniyada temporary-ga ku meel gaarka wadani originkiisa hadii la rabo habar geedra iskale wiil yaroo masaakiin oo cayra ayaa amxaaro soo gashay meeshii la dhihi jiray halkan meesha la yiraahdo hadii ilaahay ku reema tabaan ayuu naga noqdo lahaa war waa kuma ninkaan leefan ku jira walaalo sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho walaalo wadaniyada hadii lagu faanayo waa adiga wani leefan ku jira ma ogtahay war leefan ku jira leefan ka hadla rabaa arrin xasaasi ah sheego haye hal mar haye hadal niyahow waxaan ahay wiil cidda ma fahanta oo adiga isku cid aad tihiin gabar baa dhowr sano wada soconay joogta waddanka ingiriiska ma fahanti leefan ku jira taas private ma ficnano ama mar kale aan ka hadalno war gabadhii abgaalniyo waa igu daadisay maadaama waxay tiri wiil habar gidirow waxay tiri waa igu daadisay ma fahmino halkin waa igala baxday aad jeclaa marka xasan sheekh maxamuud ma u sheegay hadda madaxweyne xasan war aniga haddaa habar gidirnahay ishaad haddaa habar gidirnahay abgaal aniga waa jecelnahay laakiin ayagana ma jeclo runtii marka la isku sheego waa ognahay laakiin waxaan ka hadlaynaa in annaka habar geedra aan yeelno hoggaan aan dadkana laka xulan mustaqbalka 2026 madaxweynaha soo socda inaan u diyaar garowno 2026 wadanka Soomaaliya waxaan u sheegayaa anoo wiil habar gedir Soomaaliya hadii la rabo ha burburto 2026 waa inaan madaxweyne noqonaa uu noqdaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aad ma santay libax marka waa meel ku degdegayay hadda ka diban يا قبل أبقالو كوكو سنة وحلاني أبقالو فيري هورتا مينان كو شيغا فيري قبل ناسا نيجا جعلابي قبل ناسا كجعلابي باش أبقال وين يقول داز والله جعل كذا وروالو يا كدا والله وما تنتهي كاسينا وانين هبرقيرو قبل أبقال جعل كودي دانيغن وانين هبرقيرو أبقال حلكي كغاتي لما انت وانا عنا هاي مدحويني نغا غاتين ترس مسترالي نغا غاتين قاردكي نغا غاتين سفاردي نغا غاتين دقموينكي نغا غاتين سروري كبحيين سليباني كبحيين دادك نغا يدلين أفرتن غفو يدلين وحنو مسوعلين ولا ليال نما كان جالنجو كل جرنا دارود هدي هلغف نقدر نقف عن كدلنا هدي مدحوين نقدر نلقى عن كل دقنا ولا ليال أنك أبقى لبي كوبي تمن كوبي تمن غفو عيار بقولون إيه لسان نهي وما سبعي كرنو أن لا حسابتنو على مودي ما نقون كرنو نين
nin aad mushaar siinaysid oo guddoomiye aad ka dhigtay haddii ilaahay ku roon yahay qof iyo coda waa qof leeyahay waa calanwade abgaal ima talinayo anigaa keensanaya haddii qof la keensanayo walaalayaal dadka noo talinaya aan keensano yaan naloo xulin walaalayaal qof abgaala ma soo xuli karno haddii caydiid ay la joogeen faacatuugay ahaayeen walaalayaal yaanaan yeelin gabar habar gidira in iyadoo aanala warsan nin la tago ayaan eed u aragnaa matalaadeenna in qodbasiro laga dhigto lala baxsado ee xasan meeshuu rabo ku meersado nooma qaadanto waxaan ka hadlaa intaas waay intaa isla fahamno laakiin karaamo powerful power horse dad qiimo leh oo bacaadka iyo dhiiriga iyo rafkaba ku noolaan karo ku soco kara qabiil talent fiican way habar gidir laakiin hoggaan u baahan yahay intaa isla garanno sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato garta luqadda magaalada luqadda baadiyaha luqadda magaaladu faan maahan ee waa xisaabtan cashuurtaydii aaway waxaan wada lahayn aaway adiga miya iga badan sidaa waay sidaa awgeed guriga gobonimo walaaleel guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullahi